السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سكرية عيسى وكم غادر حرباوي إن شاء الله تعالى. الفيديو كان وحنا وصل جري لايف تريد وكاسو عن ربو إن أنا واحد بدن هذا إن شاء الله. وكسبسن أكون ير أوكله سيد لو كرين هاي أوكله. هدي أتكون سبتاي channel كينا فضلا سبسكرايب سا جنبالكنا فرو si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya videoga aan soo gelino insha Allah. sidoo kale haddii aad ka hesho videodeena sii share gareeyo asxaabtaada la sii wadaag. live trade keena maanta wuxuu ku saabsan yahay pound JPY iyo reasonka aan u galnay hadduu aligna insha Allah. pound JPY inta ayaan ku haysanaa sidaad aragtaanba waa area support here. okay waa meeshii ugu dambeysay ayuu marayaa halka saac 1 hourkii haddii aad fiiriso marka lukiya waa kana 20 May shalay mar labaad ayuu yimaaday. so marka intaan 3 jeer ayuu yimaaday walow uu meeshaan ay noqonayso structure higher lower higher. okay intana ay noqonayso double bottom. sidaas darteed marka waxaad aragtaa si clear ah inuu waqaca meeshaan ku dhawaad ilaa 100 pips 100 ilaa 122 pips ayuu kacay. waxaad u jeedaa marka pound JPY sababaha wax kale ma ahan weekii la soo dhaafay oo dhan wuxuu ku jiray down. okay weekii la soo dhaafay oo dhan hoos ayuu u socday. sidaas darteed marka hadda waxay ku fudaanaysa marka in qofka qiimo macquul ah uu ku gala xitaa walow hadda uu xogaa yar uu soo yara dhacayo inta ayuu cuskan doonaa 140.35 ilaa wuxuu cuskan doonaa ku dhawaad 140.20. intaas markuu cuskado ayuu sameyn doonaa wax loo yaqaano pullback. hal mar kale ayuu mar kale sameyn doonaa walow area resistance hadda u noqon doonto siduu ku jibiyo adag tahay. haddii uu jibiyo wuxuu tegi doonaa 142.24. waxaan idinku tusinayaa brokerka. sidoo kale waxaa ka mid ah tradeka kale live tradeka Australian JPY isagana oo hadda uu soo dhacaya isagana waad aragtaa walow hadda uu kor aaday. sidaas darteed marka waxaad arkaysaa in sidoo kale isagana Australian JPY isagana kor u socdo. marka lacagaha JPY oo dhan kor ayay u socdaan. marka waxaa macquul ah guys waa anigoo xardaawi waxaan rabaa inaan idin tusiyo akoon aad u yar oo kale qaabkaad signals ama aad ugu korin lahayd ama live trade inaan idin tusiyo. inta waxaan ku haysanaa akoonkeena ayaan ku haysanaa ama page waxaan ku haysanaa pagekeena ama groupkeena Xarbaawi FX team. waxaan soo gelinay pound JPY oo buy ah. masha Allah si fiican ayuu u socdaa. okay si fiican ayuu socdaa. update marka dambeyso waan soo update gareynay akoonka. marka dhowr qaabood ayaad u korin kartaa. horta meeshan waxaan ku haysanaa brokerka ayaan ku haysanaa akoon ayaan ku haysanaa oo live akoon ah. waxaan rabaa inaan intusiyo pound JPY waa kana marka. okay pound JPY 1 hour oo kala ii saaran baayiga laba meel ayaan ka galay waa real account sidaad u jeedidba masha Allah si fiican ayuu u socdaa. okay qiimaha marka TP-ga ayaad sugaysaa walow hadda aan TP aan ku xirin aniga oo maadaama aan ka rabo daily oo kale markaan fiirino ilaa uu socon karo 144 ilaa 140 iyo something waan sugaynaa insha Allah. sidoo kale Australian JPY ayaan ku haysanaa meeshaan isagana oo si fiican u socda. marka akoonka qofka isaga ayaa laga rabaa qofka inuu ka taxadaro qaabkee ayuu uga taxadaraya. wuxuu uga taxadarayaa inuu ogaado akoonkiisa inuu lacagta ugu jirto. sidoo kale haddii aad maamulayso akoon inaad lodka aad ku geliso oo macquul oo yahay. okay way kala duwan akoonada way kala xajmi weyn yihiin way kala waaweyn yihiin. qofka isaga laga rabaa inuu akoonkiisa ka taxadaro. sidoo kale TP-ga waa inaad sugtaa. okay TP-ga waa inaad sugtaa take profit ka micnaheedu waxaan ka wadaa TP-ga qofku waa inuu sugaa
sababta u sugayo wax kale ma aha haddii aad xirxirto $1 $2 $5 aad iyo xirxirto waxaa suurtagal ah mid inuu stop loss kaasoo taabto taasina waa marka waa kuugu dhib hadwaalino sidaas darteed marka akoonka ka taxadar live-ka ayaan idinku tusinayaa signalska insha allahu tacaala waa anigoo xarbaawa macquula marka dadki inay isweydiiyaan akoon yiri sidee buu qofku u korin karaa akoon yar simple weeyaan waxaad u korinaysaa intu ku jirto waa inaad ogaato horta number 1 markaad ogaato intu ku jirto ayaad waxaad samayn kartaa wax la yiraahdo inaad qiimihii aad lodkaaga aad ka taxadarto oo ah lod macquula inaad soo gasho 0.03 0.02 akoonka hadduu yaryahay okay sidoo kale TB-yadaada waa inaad sugtaa okay TB-yadaada waa inaad sugtaa for example hadda oil oo kala gashay crude oil aa gashay ilaa 3 jeer ayuu meeshaan taabtay hadda markaan waa markii clearka u dhici doono okay groupkeena weyn oo ku soo post gareynay si free ah waxaad arkaysaa inuu dhacayo insha Allah wuxuuna gaarayaa ilaa 6140 isla maanta haddii kalena tomorrow oo taariikhda ay tahay berito 22 May insha Allah sidaas darteed marka qofka technicalka iyo fundamentalkii markuu isku darsado ayaa wax badan waxa u sahlaanaysa inuu qiimihiisa sax ula keeno oo ka faa'iido hadduu alla insha marka waxaa idin kula talinayaa inaad TB1 aad sugto haddii aadan TB-yada kale aadan sugi karin inaad take profit 1 inaad sugto si aad faa'iido u aad u hesho laakiin markuu 2 pips 5 pips oo sintiyaal u dhaqaaqo oo faa'iido yar aad aragto hore aad ka xirto hadhow waxaa suurtagal ah mid ka mid ah inuu khasaaro ku keeno haddii uu khasaaro ku keenana waxaa weeyaan wixii maanta iyo shalay iyo daraad aad soo shaqaynayso oo yaryarka oo aad isku dardartay inuu loss kaaga noqdo ayaa suurtagal ah insha Allah intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa live trade-kayga oo anigoo ah Sakariye Ciise oo ku magac dheer Xarbaawi waadna ku mahadsan tahay daawashada videoga like sar haddii aad ka hesho videoga haddii aadan ka helina dislike sar commentiga noogu reeb wixii aad noo hayso fariimo ah insha Allah taala bye bye see you again